dowladda Holland ayaa si rasmi ah ugu soo celisay 119 alaab qadiimi ah oo laga xaday boqortooyadii hore ee Nigeria ee Benin in ka badan 120 sano ka hor xilligii gumaysiga. Olachibile Holloway oo ah agaasimaha guud ee komishanka qaranka Nigeria ee madxafyada iyo talooyinka ayaa sheegay in alaabtan farshaxanka ahi ay yihiin ruuxda iyo aqoonsiga dadkii laga soo qaaday. waxa aan kaliya aan weydiisano adduunka waa in naloola dhaqmo si cadaalad ahi, sharaf iyo ixtiraam, ayuu ku yiri xaflad lagu qabtay madxafka qaranka ee waddankaasi. wuxuu intaasi ku taray in Jarmalku uu sidoo kale ogolaaday in uu soo celiyo in ka badan 1000 qaybood oo dheeraad ahi. farshaxankan qadiimka ahi oo loo yaqaano Benin ayaa ah soo laabashadii ugu dambeysay ee taariikhda qaaliga ah ee Afrika, iyadoona ay kor u kacday cadaadiska dowladaha reer galbeedka si ay u soo celiyaan alaabtii ay qaateen xilligii boqortooyadii ama gumaysigii. 4 ka mid ah farshaxanadan ayaa lagu soo bandhigay barxadda madxafka, waxayna sii ahaan doonaan kaydka joogtada ah ee madxafka waddanka Nigeria, halka kuwa kalena lagu celin doono halkooda oo kaydka u ah Benin. taliyaha dhaqanka ee boqortooyada Benin ee koonfurta Nigeria, alaabtan Bronze of Benin waxaa ka mid ah farshaxano bir ah iyo foolmaroodiyo soo taxnaa qarniyadii 16aad ilaa 18aad. alaabtan ayaa la xaday 1897 markii ciidamada Ingiriiska oo ka amar qaadanayay Sir Henry ay xoog ku qabsadeen boqortooyadii Benin oo markaa ah koonfurta Nigeria, waxayna ku qasbeen boqortooyada xilligaasi in musaafiris 6 bilood ah u baxo. Nigeria waxay si rasmi ah u codsatay soo celinta boqolaal walxood oo madxafyada adduunka oo dhami ah uga kala maqan isla sanadkaas. ilaa 27 waxyaalood ayaa laga soo celiyay madxaf ku yaala London. 31 ka mid ahna waxaa laga soo celiyay jasiiradda Erhoda ee Mareykanka. ma laga yaabaa Soomaaliyana in sidaas oo kale agabyo taariikhi ah qadiimina ah oo waddankana waxtar u leh in ay uga maqan yihiin gumaystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriiska oo la kala ogyahay koonfurta iyo waqooyiga in ay xoog u haysan jireen sanado badan.